sidaa darteed maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah. 2 jeer oo hore ay soo martay maxkamadeynta 7 qof oo mid maqan yahay. fursadda habraaca ee jeedinta waxaa iska lahaa qareenada oo sharciga u ogolaa in ay soo bandhigaan cadeymaha iyo markhaatiyaasha ay heli karaan. markii ay ka soo dhamaatay ayaa loo gudbay dhamaadka habraaca dacwadda oo ah in dhinacyada dacwadda ay gunaanad sameeyaan. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo jeedinta eedda gabagabadeeda u wakiishay xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ku dheeraaday sababta uu u geeriyooday Axmed Mukhtaar Saalax Axmed Dowlo. maxaa loo dilay maxkamadda rabaa inaan u sheego maxaa loo dilay marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib dambi ma gelin gabadha kiisku ka bilaamay la sheegayo asaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay. sidoo kale xafiiska ayaa weydiistay maxkamadda in la mariyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen eedeysanayaasha. waxaan codsanayaa in maadaama maxkamadda horteedan ka cadeynay dambigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aan ka hor keenay cadeymo iyo markhaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shariicada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil. maxkamaddu ay maasanta abukaata cali xalana oo wakiil ka ahaa eedeysanayaasha ayaa codsaday in maxkamadda ay sii deyso eedeysanayaasha marka laga reebo midkood oo maxkamadda ka hor cadeeyay dambigiisa. marxuumkii lagama haayo inuu dhahay aweesa laga yaabaa inuu maalin oo dhibaato ii geysto ama nafsadeyda uu salbado lagama haynin xataa. marka taa waxa waaye waa coincident waa arin dhacday waaye go'aanka maxkamadda iska leh. waxaan leenahay eedeysanayaashan labada kale maamooyinka in xurriyadoodii la siiyo maantana ay reerahoodii u tagaan si xur ah. maxkamaddu waa mahadsan tahay. cabdiwaxid oo ka mid ah qareenada ayaa isna isdul taagay qodobo sharci oo muujinaya inay jiri karaan in la qaato go'aano qaldan balse uu codsaday in loo fiiriyo qodobada dambiga fududeeya. un fat injusto arrin xaq darro ah ku dhacday maxaa xaq darro ka weyn gabadhaada in laga wato reerka ka watan ay ku imaan waayeen maxaa ka weyn wax ka weyn ma jirto. arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto hala fiiriyo qodobka ba arrin cadaalad darro oo kugu dhacday adiga xanaaqna waa abuur kartaa. tashi ay u baxeen garsoorayaasha kadib waxaa markii ay soo laabteen xukunka u akhriyay ka qaybgalayaasha dacwadda gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalin Maxamed. maxkamaddu markii aragtay gabagabada difaaca eedeysanayaasha ee waafaqsan 119 xeerka ciqaabta waxaa maxkamadda u cadaatay kow eedeysane Xuseen Iidow Maxamed labo Asli محمد عبد الله سدح عويس إيدو محمد oo lagu soo eedeeyay in ay si toos ah uga qayb qaateen dhacdadaas oo u dhintay marxuum Axmed Dowlo ay mas'uul ka yihiin. sidoo kale maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha kala ah Caasha Iidow Maxamed مستيحة إبراهيم عبد الله عبد الرحمن محمد علي ديقو علي سياد أي نسوق بين حفيز كحلالي قد قرنك عضيميه كفلنا سيدا درتت محكمة قولك بنادر وحاي كوحا كنتي كو حسين إيدو محمد لابو أسلي أحمد عبد الله سدح أويس إيدو محمد دلتو قشاه سوى فقسان قولك أفر بقول صدني أفر سيدا كالي محكمة قولك بنادر waxay xorriyadda u soo celisay Caasha Iidow Maxamed Nasteexa Ibraahim Cabdulle Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Deeqow Cali Siyaad. maxkamaddu way inoo xiran tahay xukunkan racfan ayaa ka furan. 20kii bishii 9aad sanadii tagtay ayuu marxuum Axmed Dowlo u geeriyooday baangado dab iyo basiin ay qabadsiiyeen reer ka careysnaa guurka gabadhooda heebsooc guur. waxaase wixii xilligaasi ka dambeeyay dawladda Soomaaliya isku hawshay sidii ay cadaalad u heli lahaayeen reer Axmed Dowlo. عبد القادر عيسى ورباهين تكرنكا مقالة مقدشو.